isbitaalka Lansaloti ee degmada Cabdicaziz ee gobolka Banaadir oo kamid ah isbitaalada qadiimka ah ee ku yaala dalka isla markaana jira 93 sano sanadkii la hirgeliyay oo ahaa 1926 ayaa waxa iminka ka muuqda burbur xoogan kaasi oo ka yimid dagaaladii sokeeye ee dalka soo maray duqa magaalada Muqdisho aana gudoomiyaha gobolka Banaadir mudane Cumar Maxamuud Maxamed Cumar Filish wasiirka shaqada iyo arrimaha bulshada xukuumadda Soomaaliya ayaa booqasho ku tagay xarunta isbitaalka Lansaloti iyagoo booqashadaasna ugu kurgalay xaaladda dhabta ay ka jirta isbitaalkan iyagoo halkaana warbixin kaga dhageystay maamulka isbitaalka gacanta ku haya gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho wasiirka shaqada iyo arrimaha bulshada xukuumadda Soomaaliya iyo gudoomiyaha ku-xigeenada maamulka gobolka Banaadir ayaa mid waxay u kormeereen qaybaha uu ka kooban yahay isbitaalka Lansaloti iyagoona iminka isbitaalkaas lagu daryeelo dadka dhimirka la waxaana madaxdu ay bukaanada ay la kulmeen ay ka wareysteen xaaladooda caafimaad iyo baahiyaha ay qabaan mid kamid ah maamulka gacanta ku haya isbitaalka Lansaloti Faaduma Cabdi Macu ayaa waxa ay maamulka gobolka Banaadir oo duqa magaalada Muqdisho warkacay iyo wasiirkaba ay kaga warbixisay qaybaha uu ka kooban yahay isbitaalka iyo xaaladda ka jirta iminka isbitaalka qaybo badan maqan qaybta shubanka maqan qaybta lebrosiga maqan juudaanka maqan waxa kaloo maqan hepatitis-ka maqan HIV maqan meelo badan naga maqan tii bishada caadiga ah maqan barkee tii bishadan MDR way multi drug resistance way tii bishada caadiga naga maqan annaga wixii lagu soo kordhinay dalka waa ku faraxsanahay wasiirka shaqada iyo arrimaha bulshada xukuumadda federaalka Soomaaliya mudane xildhibaan Sadiq Xirsi Warfaa oo la hadlay warbaahinta isla markaana kula hadlay xarunta isbitaalka ayaa waxa uu sheegay in muhiimadda booqashadoodu ay tahay sidii loo hirgelin lahaa qaybaha lagu daryeelo caruurta iyo darbijiifta iyo kuwa agoonta ahba goob kulley aan rajeynayno in dhaqso laga howlgali doono oo ah xarun kulley dadka dhimirka iyo dadka kulley agoonta iyo dadka darbijiifka gobolka Banaadir waliba degmada Cabdicaziz ka faa'iideysan doonto marka anaga xoog waxaan saaray arrimaha bulshada weeyad oo agoonta iyo darbijiifka way gudoomiye marka insha Allah taala aad baan uga mahadcelinayaa gobolka sidoo noo garab taagan yahay xaruntan insha Allah taala waa sida ugu dhaqsaha badan baa loo hirgelinayaa waana dhulkan weynka badan meel kaga haboon kulli anigu garan maayo duqa magaalada Muqdisho aana gudoomiyaha gobolka Banaadir mudane Cumar Maxamuud Maxamed Cumar Filish oo la hadlay warbaahinta ayaa waxa uu sheegay in dhismaha isbitaalkan Lansaloti uu u baahan yahay in la iska kaashado maadaama dhul ballaaran uu ku fadhiyo isbitaalka waxa uu xaqiijiyay in maamulka gobolka Banaadir uu ahmiyad gaar ah siinayo dib u dhiska isbitaalka duqa magaalada Muqdisho mudane Cumar Filish ayaa sidoo kale uga mahadceliyay cid kasta oo kaalin ka qaadatay dib u howlgelinta isbitaalkan dadaalada hadda ka muuqda ee yaryarka ah dadaalo ka weyn oo uga muhiimad badan oo baahi weyn daboola hadii alla idmo ayaan ka fuli doonaa waxaa la rabaa marka dadka hadda aan ugu nimid isbitaalka oo gabadha agaasimaha ay kamid tahay iyo dadka kale ee maamulka degmadu uu kamid yahay iyo qaybaha kale ee bulshada meesha hadda aan ugu nimid dadka deriska la ah maamulka degmada iyo bulshada uu maamuloba dhammaantiin waxaan rabnaa inaad gacan ugu siisaan inaan dantan guud la dhiso oo loo dhiso bulshada Soomaaliyeed gaar ahaan bulshada ku nool degmada Cabdicaziz waxaan halkaan uga mahadcelinayaa cid kasta oo gacan ka geysatay muddadii burburka ilaa hadda la joogo isbitaalkan si noolaashihiisa haday ahaan lahayd dadka bukaanka ah hadda aan ugu nimid cid gacan ka geysata cidda gacan ka geysata biyo inuu helo cidda gacan ka geysatay inuu koronto helo cidda gacan ka geysatay inuu rinji ama nuurad ay mariyaan cidda gacan ka geysatay saqafyada iyo adeegyada kale ee caafimaadka dhammaan waa uga mahadcelinaynaa waxaana ku dhiirigelinaynaa dadaalkoodaas inay halkiisa ka sii wadaan